بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن صاحب يال دمانتين ميل كastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena murtiye maahmaah oo aan idin soo gudbino goorahan oo kale haddaan idin xasuusiyo barnaamijkeena hore waxaan ku soo qaadanay maahmaahda Soomaaliyeed ee tiraahda saddex maara looma helo gardarra garab og gaajo guri og iyo cudur geeri og sidaan filayana waad ka bogateen sharaxaada aan ka bixinay xigmadda muga weyn ee maahmaahdaas ay xambaarsan tahay barnaamijkeenan oo ah qaybtii afraad waxaan ku eegaynaa hadii ay baydmo maahmaah kale oo kamid ah kuwa ugu xigmada badan maahmaahyada Soomaaliyeed waa maahmaah arrimaha ay ku dhalatay iyo kuwa loo adeegsadaba ay si joogto ah ugu saameeyeen yihiin nolosheena caadiga ah waana maahmaah hayraado hase weynaade ahmid weyn u leh qof walba waa maahmaahda tiraahda saddex ayaa saldana ka qaada gar eexad gacan guran iyo gudoon jilicsan haddii ay dhacdo ereyga saldana qaarkiin inuusan dhab u fahmin waxa uu la mid yahay madaxweyne taliye ugaas iyo waxa la mid ah si kooban haddaan u sheegana waa hogaamiye waxaad si buuxda u wada fahmi doontaan markaan faahfaahino sababta ay ku dhalatay maahmaahdu ujeedadeeda fariinta ay wado sida ay noo wada qusayso iyo waxa loo adeegsado intay doontaba hal ekaatay bulsho kasta waxa laga maarmaan u ah in ay leedahay hogaamiye wanaagsan oo u horseeda horumarka ay higsanayso hogaamiye bulshadiisa u suuragelin kara in ay gaarto oo ku naalooto riyooyinkeeda wanaagsan hogaamiye awood buuxda u leh inuu maareeyo mushkiladaha kala duwan ee soo food saara gudashada waajibaadkiisa iyo guud ahaanba dadka uu hogaaminayo waa hogaamiye ujeedadiisa ugu weyn ay tahay oo ay ka go'an tahay in habeen iyo dharaarba uu hagar la'aan ugu adeego shacabka ku aaminay magaca maamuuska iyo mustaqbalkooda dhow iyo kan dheer sidaa daraadeedna meel iska dhiga danihiisa gaarka ah hogaamiyahaas oo leh astaamo ama sifooyin badan oo laga maarmaan u ah madaxnimada ayaa waxa sidoo kale laga maarmaan ah in uu yahay mid la doortay si aan loogu kahdoomin ama loogu khaldamin shakhsiyaadka badan ee aadka u jecel madaxtinimada magaca iyo maamuuska sare hase yeeshee aan la dabooli karin kaalinta laga doonayo ee hogaamiyenimo waxaan se isweydiin karnaa qof waliba ma noqon karaa ama ma ku habboon yahay hogaamiyaha bulshada jawaabta su'aashaasi maaha mid waqti badan inaga qaadanaysa oo waa maya mar haddaan intaas isla garanay soo ma habboona in aan isweydiino haddana waa kuma hogaamiyaha wanaagsan alla ilaahay su'aashaasi waa mid muhiim u ah nolosheena iyo halganka aan ugu jirno inaan dibadda u taagno jiritaanka iyo mustaqbalkeena si koobanna waxaan uga jawaabi karnaa hogaamiyaha wanaagsan waxa uu leeyahay tilmaamo badan oo dhammaantoodba wanaagsan waana tilmaamo aan qofna iska keeni karin oo ah hibe ee baweyna siiyo qaar ka mid ah ummadiisa astaamahaas waxaa ka mid ah diin aqoon alla ka cabsi waayo aragnimo hawlkarnimo indheergaradnimo sabir dulqaad dadaal iyo daacadnimo waxa kale oo iyagana laga maarmaan ah in hogaamiyuhu leeyahay deganaan naxariis deeqsinimo xog ogaalnimo ixtiraam geesinimo codkarnimo ballan oofin aaminnimo iyo kuwo kale oo dhammaantoodba aan laga maarmi karin su'aal kale oo muhiim ah ayaa iyaduna hortaalla oo ah tilmaamahaas oo dhan ma laga heli karaa isku qof kaliya tana jawaabteedu waxa ay noqonaysaa alle nimcooyinkaas iyo kuwa ka badanba uu awoodaa inuu qof isugu daro laakiin waxa xaqiiqo ah in bulsho kasta aysan nasiib u yeelan karin hogaamiye ay ku dhan yihiin sifooyinka aan soo sheegnay taana waxaa sabab u ah in bani aadamku uusan isku dhammaan karin oo qof kasta oo wanaagsan ay jiraan waxyaabo ka dhiman sidaas daraadeed ayaa inagoo midaas wax ku qaybsanayna aan u baahannahay in aan kala garanno tilmaamaha ugu muhiimsan ee qofka laga waayo uusan marnaba noqon karin hogaamiye guulaysta tilmaamaha ku sii xiga iyo kuwa haddii uusan lahayn laga kabi karo maadaama uu leeyahay kuwa ugu wanaagsanaa uguna muhiimsanaa haddii aan intaas uga haro faahfaahinta guud ee tilmaamaha hogaamiyaha wanaagsan aan u soo noqdo maahmaahda barnaamijkana uu ku saabsan yahay oo ah maahmaah Soomaaliyeed oo taariikh ahaan aad u facweyn ummadda Soomaaliyeed oo ah ummad facweyn weligeedba waxa ay ahayd ummad doorata hogaamiye ay awood u siiso gudoominta go'aamadeeda masiiriga ah sida ay maahmaahdan dhigayso Soomaalida hore waxa isku raacsanayd islana garatay in ay jiraan saddex tilmaamood oo qofka laga waayo uusan marnaba noqon karin hogaamiye wanaagsan waa saddex arrimood oo aan ka mid ahayn kuwa laga caawin karo hogaamiyaha ay ku jilicsan yihiin waana qodobo haddii ay dhacdo in lagu kahdoomo ama lagu sirmo qof ay ka maqan yihiin oo la doorto ay qasab tahay in maalmo gudahood uu ku fashalmi doono gudashada waajibaadkiisa isla markaana ay qasab tahay in uu waayo madaxnimadii quruxda iyo qaayaha badneed ee loo calaam saaray ugu dambeynna bulshadii dooratay ayaa dhaqso ugu baraarugtay in ay ku hadaalantay hogaamiyaha ay dooratay markaasay halhaleel ugu dhaqaaqdaa in ay doorato hogaamiye wanaagsan kii lagu sirmayna inta ay haaraanto oo aad u dhaliisho ayay ka xayuubisaa taajka ay saaratay ee lagu boqray isaguna sidaas ayuu ku dhaxlaa magaxumo haaraan takoorid iyo in la dhaliilo
saddexdaas qodob ee lama huraanka loo aqoonsaday waxa ay kala yihiin in hogaamiyuhu yahay caadil oo uusan u kala ahaan hadba dadka uu u garsoorayo xitaa haddii midkiis yahay waalidkiis, walaalkiis, wiilkiisa, xididkiis, saaxiibkiis ama mid kale oo ka mudan ixtiraam iyo qadarin dheeraad ah. midda labaadna waa in hogaamiyuhu yahay qof deeqsi ah oo xoolihiisa ku bixin kara maslaxadda guud ee bulshada, kuna taakulayn kara dadka tabarta yar, ama in uu ku kala furto kuwa xoolaha isku haysta ee arrintooda la xallin waayey oo ay habboon tahay in lagu kala furto xoolo u dhigma kuwa ay isku hayaan, ama inuu ugu deeqo kuwa u taag waayey deymaha iyo waxyaabaha la midka ah ee laga doonayo. iyo midda saddexaad oo ah inuu yahay hogaamiye leh go'aan qaadasho oo ku dhisan hal adayg iyo indheergaranimo, kana madax bannaan walaac iyo labalweyn, gaar ahaanna marka ay timaado arrin u baahan in laga qaato go'aan masiiri ah. markaasay Soomaalidii hore oo ka duuleysa saddexdaas arrimood oo laga maarmaanka u ah in laga helo hogaamiyaha loo xulinayo horseedka aayaha ummadda waxay urisay mahmaahdaana oo laga dhadhasan karo ayna ku idil yihiin saddexdaas qodob. waxa ayna tiri: saddex ayaa saldano ama madaxtinimo ka qaada, gar eexaad, gacan guran iyo guddoon jilicsan. saaxiibayaal, mahmaahdani waxa ay nagu baraarujinaysaa in hogaamiyeyaasheena aan ku dooranno sifooyinka wanaagsan ee aynan ku dooran qabiil, qaraabo, saaxiibtinimo iyo wax la mid ah. mar kale dadka jecel inay noqdaan hogaamiyeyaal ama madaxda bulshada si aan u qalmin ayayna tusaysaa qodobada lama huraanka u ah waxa ay doonayaan in ay u noqdaan ummadda. mar kale si guud ayay noogu tilmaamaysaa in aan bulshada ka dhex aqoonsan karno hogaamiyaha wanaagsan ee aan u baahannahay. haddana waxa ayna baraysaa in Soomaalidu ay weligeedba lahayd oo ay dooran jirtay hogaamiyaal wanaagsan, waayo aragnimo buuxdana ay u lahayd wadada ay u marayso helitaankiisa. ugu dambeyn, mahmaahdan waxaa loo adeegsadaa marka laga hadlayo hogaamiye lagu dhaliilayo in uusan u qalmin xilka uu hayo ummadda ama uu doonayo qabashadiisa. waxaa kaloo loo adeegsadaa marka aad u jawaabaysid qof ama koox u ololeynaysa qof aana ku habboonayn hogaamiye, iyo marka aan isku baraarujinayno in aan dooranno hogaamiye wanaagsan. waana saddexda arrimood ee loo baahan yahay inuu maanka ku hayo qofka xulanaya hogaamiye wanaagsan, kan u loolamaya inuu noqdo hogaamiye, iyo qofka markaas xilka haya oo ay laga maarmaan ka tahay inuu had iyo goorba isqiimeeyo oo xasuusnaado waxa ay bulshadiisu ka doonayso, kuwaas oo kala ah garsoor cadaalad ah, go'aan adag oo geesinimo leh, iyo inuu xoolihiisa ama hantidiisa u huri karo dadkiisa. intaas ayuu ku dhanyahay barnaamijkeena Murti iyo Mahmaah qaybtiisa afraad oo aan ku soo qaadanay mahmaahda tiraahda: saddex baa saldano ama madaxtinimo ka qaada, gar eexadood noqdo, gacan guran oo aadan waxba bixin, iyo guddoon jilicsan oo aad rido. intaan mar kale kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano Allah. ha ilaawin in aad subscribe saartid boggan si aad ula socotid macluumaad badan oo muhiim ah oo haddii Alla idmo aan idin soo tabin doono. inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.